بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد جلسدني يفرقني وفرق اللبات قصاب سنة مجالستيني علمية maalin walbana kelimo aan isleenahay bulshada ayay nafci u leedahay aan kusoo bandhigaynay. xalqadeen shale waxaan ku qaadanay dikriga Allah tabaaraka wa tacaala iyo xusida Allah tabaaraka wa tacaala iyo fadliga uu leeyahay. maanta kelimadeenna waxay ku saabsan tahay nooc ka mid ah dikrigaasi shalay aan qaadanay ayay ku saabsan tahay. noocaasna waxaa weeye waa nooca loo yaqaano istikfaarta. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf la weydiisto. waad ogtihiino waxaan nahay dembiilayaal, mar walba dembi baa naga dhaca, mar walba waajibna saarnaa baan ka gaabinaa, mar walba cibaadadii aan gudanaynay ayaanan u keenaynin siday ahayd. dhinac kale haddaan ka fiirinana istikfaarta cidda laga raba ma aha cidda dembiga gashay keli. sidaan arki doonno waa cibaado iyo taaco Allah tabaaraka wa tacaala loogu dhowaado. ama qofka dembi ha galo ama dembi yuunan gelin, waxaa laga rabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u toobad keeno, ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqdo. kelimadaasi istikfaarta ah intaan ku guda jirno waxaan u qaybin doonaa canaasir 4 ah ayaan u qaybin doonaa. majliskeenan maanta iyo majliska berito hadduu ilaahay ina gaarsiiyo waxaan ku qaadan doonaa istikfaarta. qur-aanka wuxuu ka yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala in dembi dhaaf la weydiisto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo noqdo. qur-aanka wuxuu ka yidhi cunsurka waa cunsurka koobaad. qaybta labaad sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam waxay ka tiri ilaahay subxaanahu wa tacaala oo loo noqdo, ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf la weydiisto. qaybta saddexaad oo ay u qaybsanaan doonto xalqadan istikfaarta waxaa weeye aahaarta ka sugan salafka ummaddan oo ay tilmaameen faa'iidooyinka ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in dembi dhaaf la weydiisto. qodobka u dambeeya afraad ee cinwaankan istikfaarta aan kusoo gabagabeyn doono waxaa weeye fawaa'idda iyo miraha ka dhasha qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu dembi dhaaf weydiisto. cumuuman 4 cunsur ayaan doonayaa in aan oga hadlo mowduucani ku saabsan istikfaarta. maanta iyo berito hal qayb oo ka mid ayaan qaybsan doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. istikfaar marka koobaad maxaa la yidhahda? istikfaar waxaa la yidhahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la weydiisto dembi dhaaf. alfaad wanaagsan oo jilicsan oo aadaab iyo dhaqan wanaagsan ku jirtana ilaahay lagu weydiisto, adigoo la xiriirinayo dalabka iyo weydiska Allah tabaaraka wa tacaala aada wax weydiisanayso magac ka mid a magacyadii Allah tabaaraka wa tacaala.
qiranayana uluhiyada allah tabaaraka wa tacaala iyo cibaadadaasi iyo istikfaartaasi inay tahay mid allah tabaaraka wa tacaala gooni u ah oo cid kaloo la wadaagto aynan jirin. qodobkeena koobaad maanta istikfaarta qur-aanka wuxuu ka yidhi, qur-aanku dhinacyo badan buu istikfaartu kaga hadlay. hal dhinac oo ka mid ah yaan qaadan doonaa. dhinacaasi waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala oo loo noqdo, ilaahay subxaana wa tacaala oo dembi dhaaf loo weydiisto, ilaahay subxaana wa tacaala oo loo toobad keeno. qur-aanku wuxuu tilmaamay inay tahay arrintaasi dhaqankii ambiyada iyo rusushii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray. waa dhaqankoodii, ilaahay bay u noqon jireen. ambiyo badan buu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamay in ilaahay subxaana wa tacaala ay u noqon jireen. haddaan ku bilowno aadam calayhi salaatu wasalaam iyo xawaa, rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin. xumaantii laga reebay markuu shaydaanka u qurxiyey oo ay ku dhaceen, ilaahay subxaanahu wa tacaala bay u noqdeen. rabbanaa dalamna anfusana, allow waxaan dulminay nafteennii, dembi baa la nimid, waxaad naga reebtay baan ku dhacnay. wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin. haddaana idin dembi dhaafin, xumaantii aan galnay aada naga cafinin, waxaan ka mid noqonaynaa kuwa khasaaray baan ka mid noqonaynaa. waa aadam calayhi salaatu wasalaam. kadalika nuux calayhi salaatu wasalaam oo ahaa rasuulkii u horreeyey ee dhulkan loo soo diray, ilaahay subxaana wa tacaala uu dembi dhaaf weydiistay, isagoo aada og tihiinoo muddo badan dacwadii ilaahay ku jiray, ixsaan badan la yimid, samafal badan sameeyey, 950 sano daaci ahaa oo diinta ilaahay u taagnaa. maca dalika wuxuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'mina walilmu'miniina walmu'minaat. allow dembigeyga ii dhaaf, dembigeyga allow ii dhaaf, icafi wixii iga dhacay ee habaarkii uu ummaddii habaaray ummaddiisii, laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran. ilaahw ii dhaaf wax alla wixii gafi iga dhacay, ilaahw ii dhaaf. kadalika qur-aanka wuxuu tilmaamay muusa calayhi salaatu wasalaam oo ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushii ka mid ah, ummad dhibaato badanna loo diray, dacwada iyo diintaasna qeyb muhima ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii in la caabudo qeyb ka qaatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u noqday, dembi baa ka dhacay, nin qoladii cadowgiisa ka mid ayuu dilay, ilaahay buu u noqday, waa toobad keenay. fi suurati الnamli ama fi suurati اlqasas waa kii allah tabaaraka wa tacaala uu yihi isagoo ka xikaayoonaya muusa calayhi salaatu wasalaam, qaala rabbi inii dalamtu nafsii faqfir lii fagafara lah. allow waxaan dulmiyey naftaydii, allow dembi baa iga dhacay, ilaahu ii dembi dhaaf, ilaahu i cafi. ilaahay subxaana wa tacaala waa cafiyey. kadalika allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka gudihiisa wuxuu ku tilmaamay shucayb tolkiisii in waxyaabihii uu amray ay ka mid ahayd ilaahay subxaana wa tacaala inay dembi dhaaf weydiistaan,
إلهي سبحانه وتعالى أنا أقول نقضان واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود حيري والربي هنا دم بدافع ويتستا إلهي النقضة إلهي الطبط كان وحد دبي وإذن كان عاي إلهي سبحانه وتعالى عفس ويدستا إلهي سبحانه وتعالى وودود ومد أدومي سيجعل نحريس ربنا ويرب سبحانه وتعالى قرآن كمركات فيرسو النبي اللي صادر مجرو إلا أمدي سوى عليه إلهي الله نقض إلهي دم دافع لو يدستو إلهي الله طوبت كانوا وحلمي ده صالح عليه الصلاة والسلام تلكيسي مركو أمري الله تبارك وتعالى كريجي عبدان وإلهي سبحانه وتعالى كريجي كحرمان وحيري فاستغفروه ثم توبوا إليه ور إلهي دم دافع ويدستا إلهي النقضة وحي خلد إذن كدعي إلهي إنه إذن عفية إلهي ويدستا نبينا وان أركي دونايو isagu laba si ahaan baa loo amray maxamed calayhi salaatu wasalaam labada qayb waxaa weeye mar waxaa la amray ummadiisa ilaahay inuu dembi dhaaf u weydiiyo marna isagaa la amray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembi dhaaf weydiisto waa kii rabbi subxaanahu wa tacaala uu nebigiisa ku lahaa fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalb lanfaduu min xawlik فاعف عنهم واستغفر لهم دم داف إلهي أويدي دمركي نبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لقالي وهشيسك لقالي وحالي واستغفر لهن الله إلهي سبحانه وتعالى دم داف أويدي دين عاسي ودين عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا أمري in ummadiisa ilaahay dembi dhaaf uu weydiiyo dhinaca kale isagii ayaa waxaa la amray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembi dhaaf weydiisto fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidembik waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaaga dembi dhaaf weydiiso dembiga kaa dhaxayo faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika walilmu'miniin waxaad ogaataa xaaladdu iyo sha'nigu inay tahay ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alle mooye wastakfir lidembika walilmu'miniin dembigaaga dembi dhaaf weydiiso allah tabaaraka wa tacaala ummaddana mu'miniintana ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydi oo ma ambiyada ilahay baa dembi ka dhaca jawaabtu waa maya qur-aanku waxaan ku akrinaa nabigeena sala allahu alayh wasalam dembigiisa kii hore iyo kii dambaba in la dhaafay laakiin waxaa weeye waa tashriic liummatihi sala allahu alayh wasalam waa jidayn uu nabiga sala allahu alayh wasalam uu jidaynayo arrintaasi ummaddiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dembi dhaaf weydiistaan sidaan horumarinay kuma xirno dembi dhaafka allah tabaaraka wa tacaala la weydiisanayo in uu qofka dembi galay iyo inuu dembi gelin kuma xirno kii dembiga galay ilahay inuu dembi dhaaf weydiisaa laga rabaa ilaahay u noqdo kii aanan dembiga gelin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembi dhaaf weydiisto waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado kii dembiga galay dembigii baa loo dhaafaya kii aanan dembiga gelin ee ilaahay dembi dhaaf weydiistay waxaa la siinayaa ziyaado ajir iyo thawaab iyo darajo ah adduun iyo aakhiro sidaan arki doono markaan u tagno fawaa'idda ay leedahay istikfaarta intaasna waa inta ku saabsan nabigeena sala allahu alayh wasalam amarkii la amray
إن إلهي سبحانه وتعالى وأمره مرنا إنه أمدي سدى بلاف ويديو مرنا وإشاق ويدستو. كذلك داود عليه الصلاة والسلام وحال أمري إنه إلهي سبحانه وتعالى دم بلاف ويدستو. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود عليه الصلاة والسلام إلهي بقول نخضي سجود بقول نحي إلهي بدن بداف ويدستي. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام سجل وحقول نخضي ربي كيس وطبط كاني رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الله ودنبك إيداف لبدا إذا والدنا أضاف لبدا والدي آيات الله الشيء وإنتينا أعدانين إني أهايين عدو الدين ده إلهي بودن بداف ويدي. لكن markay muuqatay oo cadaatay in diintani cadow ay ku yihiin Allah tabaaraka wa ta'ala awaamirtiisana aynan fulinaynin istighfaarti waa laga reebay. كذلك سليمان عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى ودم دافو يدستي رب اغفر لي وهب لي ملكا الله ودم بقى إيداف وحاند إسيسايو إيه بيساه ملكي يبقرتويو إلهو قعنت إيجلي سيدا إذين موقع ولا ليال وحان تلماني طبعا كمد أنبياء الله تبارك وتعالى ومد والبا وإلهي سبحانه وتعالى إلهي دم الأف ويدسانيو إلهي سبحانه وتعالى أنقنيو إلهي سبحانه وتعالى أتوبتكينيو إلهي سبحانه وتعالى اسكوليبيو سؤال أباها المركنا اسويد سحاوي مرة دي أنبياء الله تبارك وتعالى الله دم الأف ويدسانيان انتين جوجنا أنا جاي هذيك ما يقدم بيبا نقد على هذيك يا أنبياء يا كيبا أباه بدن إنه إلهي دم بدافع ويدستو كيبا مضر إلهي سبحانه وتعالى إنه النقض كيبا مضر إلهي سبحانه وتعالى إنه اسكن يبو جوابته حين قنا الساعة إنك كم مضر ما دام الذنوب تأنا قد عيسو هبينك نقد عيسو مالي نقد عيسو دقيقة قده نقد عيسو مرول بدن بليال عنه إن إلهي سبحانه وتعالى النقنه إنك مضر خلاصة وحوي إلهي سبحانه وتعالى أن نقنه إلهي سبحانه وتعالى أن أطوبت كانه أنبياء ترى بدن أنت الماننا أن قضينا رقم كودي إيو رات كودي أن راعنه إلهي سبحانه وتعالى وحنويد سنة يدمان تيدو إنه نوافجيو طوبت كانك الله تبارك وتعالى إيه دمدافك الله تبارك وتعالى نجانا أقبله صلاة إيو صونك إيو عبادة إيو قيامك إلهي سبحانه وتعالى إنه نجا أقبله ننا وافجيو هبينك خيرك بدن ليلة القدر جاء إلهي سبحانه وتعالى نوافجيو ضمان أمد الصومالية ميلي جوان إلهي سبحانه وتعالى يا مسلمين ضمان إلهي سبحانه وتعالى وافجيو انت حنوسا إلهي سبحانه وتعالى عافيو انت حبسيده كجرتنا إلهي سبحانه وتعالى كسيدايو انت مراد لإلهي سبحانه وتعالى مراد كود أسالو انت أيان كلمة دينا ما انت كجوجرين هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.